قرآن كل حبلا جواه رئيسية قرآن بين جواه رين دونا إن شاء الله برنامج كنت على إنه كان ورش شيء عن الله هنا المفروض إنه هو نفسه مختار آدم وبار القرآن إنه قرآن حاضر هي هذا البار الراعية كتير بين مركب الرمض وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا مركب رئيسان دين معي وشلنا مع المدة كثير somaliland اليوم magaalada Copenhagen ee maartay wadan deena maartay dalka nahay waxayna la jooga waqti lana meelo ka kala yimi oo maartay maayarada iyo ganacsato dhammaantood reer somaliland aan ka soo bilaabay wadankii waxay nooga yimi tan maayarada ka yimi oo qaarada Yurub soo kacay waxay haysantaa ma tacaawin inay joogaan laakiin dawlad ka garanaya duruufaha ka jira shaqaduna way safar badan tahay oo maartay meel ka bilaabaya awal laakiin laba inay kala joogaan waxay nala joogaan gudoomiyihii watay waqtiga oo ah Saleeman حدين أما سليمان حسن حدين وآخر مع يدرس ومعنا إليه ما في دومية يبدو دومية كليين طبعا دومية هو كعاصمة دومية كليين كنا بعويان ما يكبرون من وسليمان حسن حدين وإنه جوجا عاو وحكلوا إنه جوجا وضيق ما يكبر وجاء وين ومعون رئيسنا هو وضيق ما يكبر هذا وجاء وين هاي أي سبب إنه جوجا وإسماعيل حكينورا وحين لا جوجا والله وحين لا يماطي وما يكبر somaliland أما وطن كي لما ينوض نعطيها وما في ونبي somaliland أي لا جوجا ومصطفى آدم عبدي يا عبد الوهاب محمد labadaas inay iyaguna way nala joogaan waxa kaloo inala joogta oo barnaamijkan oo dhan ka dambaysa ismaatinkeena maayaradan Yurub soo baxay iyo maaragtay hawshan la qabanayeen ku jirnaba waxa iyaduna marka halkan inoo fadhida oo xildhibaanad ah Rooda Abdi Xasan oo Abdullaahi Xasan oo ka ah maaragtay xildhibaan magaala Turku la yiraahdo oo ku taala Finland runtii mudnaan weyn bay leedahay dhowr jeer bay u leedahay mudnaan orda marka hore waa inan weeye waxayna tustay ama maaragtay halka inooga muuqata roolka ay inan ahaan gaadhay iyadoo xilliyadii maaragtay Yurub loo soo kacay dadkii soo kacay ka mid ahayd iyadoo hooyo ah iyadoo caruur leh inay heer jaamacadeed gaadhay inay heer xildhibaan gaadhay inay maaragtay waftigii sida maanta u hogaaminayso dad baarlamaanka Finland kamida ama gudoomiyaha maaragtay maayarka magaalada inay ilaa hargeysay ilaa wadankii geysay ilaa miyigii u saartay arintaas waxa weeyaan mid u baahan maaragtay in mudnaanteeda la siiyo laguna booriyo hablaha kalena higsadaan inta haddaan ka gudbo maayarada iyo maaragtay arintooda waynu soo dhawaynaynaa oo maaragtay si aad baynu soo dhawaynaynaa waxbaynu faraynaa ma way waraysanayno iyaga oo waynu la soconaa wadankii iyo warkiisa laakiin waxbaynu faraynaa waxaynu wax u faraynaa waxa weeye inagu dhulkeenu joogno waa ogtihiin waa dhulka la majeertay la yiraahdo waxbarashada taala aqoonta taala xadaarada taala horumarka iyo tiknoolajiyada yaala in ay waxay nagala tagaan oo aynu wax u dhiibno ayaa loo baahan yahay maanta hadaan idin warno intaan anagu soo qabanay ninka mubaarak la yiraahdo Cabdiraxmaan runtii waa nin xildhibaana oo magaaladan maalmo waa ninkeenu bergi dhow tacab ka saarnay wuu ku guuleystay uu soo baxay hawshiisii horeysayna wuu ka soo baxay muddo yar oo gaaban baa warku nagu soo gaaray wuxuu soo baclamiyay labadii maaragtay kamid aha xildhibaanada ama maamulka magaalada maalmo labadii shakhsiye ugu muhiimsanaa socodka waftiga inoo yimi cid ay la kulmi lahaayeen
يعني كوي ugu muhiimsanaa buu soo ballamiyay waxa kamid ah oo kowka ninka ugu dacda weyn ama ugu taariikhda roon oo ah maayarka magaalada Maalmo ka 10kii saaka 9kii baan la kulanay saaka ilaa iyo maaragtay saacadii in ka badan baan la fadhinay runtii wax badan oo wax ku oola ayaa ka soo baxay si wanaagsan uu noo qaabilay dhamaantiina waan ku qanacnay maantana waxaanu soo tagnay Copenhagen oo waatan maartay wafdigan Copenhagen ina soo raacay rito hadii ala ka dhigo waxa u balansan 10ka subaxnimo nin kale oo isna ah maayarada ama maamulka sare ee magaalada tan maartay Maalmo ninkaas oo ah gudoomiyaha magaloyinka Yurub marka runtii waxaad moodaa iyadoo waqtigu gaabnaa iyadoo aan la sii qorsheynin oo aan tan qorshaheedu aanu jirin haddana siday maartay u dhacday inay maartay si aad iyo aad u wanaagsan ay tahay iyar baan markaa uga warramaya magaalada Maalmo jaaliyada ahaan waxaanu nahay maartay jaaliyadan Maalmo waxa la asaasay 1997 waxa lagu yiraahdaa magaceedan waxa weeyaan jaaliyada somaliland ee Maalmo runtii waxyaalo badan baanu qabanay ama ay jaaliyadu qabatay dhammaan bayadoo loo dhan yahay marka la leeyahay jaaliyada maamulka iyo maaragtay bulshada marka la isku daraba waxaanu noqonay oo aanu qaadnay 3 barays oo kala dambeeya oo aan ka dhicin hal jaaliyad oo kamid ah oo maaragtay magaaladan Maalmo joogtay intaan ku ognahay ama ururba cid kasta to 3 aan isla helay qaaday inaanay jirin ayaan horta haynaado waa kuwa iyagu saaran ee soo aragteen taa horta waan idinku bishaaraynaa idinka qudin caawa ina meel wanaagsan fadhidaan oo maaragtay jaaliyad sida u dadaashay iyo bulshacaynkaasta ina u timaadeen hadalka waxaan u gudbin doonaa oo barnaamijka inoo wadi doona xasan inta waxaan kaga baxay anigu hadalkaygii waxaan leenahay hadaa waftiga tihiin hadaa rooda tahay iyo hadaa bulshada tihiin dhamaantiinba soo dhawaada assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan hadalka siin doonaa maxamed cumar askar si uu kelmadiisa uga yiraahdo ku saabsan jaaliyadeena Maalmo iyo taariikhdeeda iyo sidaynu u dhisanahay iyo dadaalkeena بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتي إنه يمد وحنا نسود هذا مركله dadka inii kale dhibaatooyinka dalka ku dhacay way soo baxeen dibadda inuu nimid noqday way jiraan laakiin barba dibadda jooga waxa noqday nolosheenii inaan ku saxna hadana inuu sameysano jaaliyada Finland Sweden to dal kale jaaliyadeenina way shaqeeyaan oo kuwa inoo suurta galiyay inaan kulankan oo kale ku kulanno maraaxin rajaynaynaa dhammaanteen gudaya dibadba inoo mustaqbal iskaashanayna in horumarka dalka wada shaqeyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay maxamed cumar askar haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Ismaan Xamari oo odaygii magaalada bismillaahi raxmaani raxiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاليدا Maalmo waxqabad keeda halkan Sweden iyo horumar keeda iyo heerka ay gaadhay gudoomiyaha ka waramay oo xoogaa inooga taabtay markaan waxaan ku biiranayaa intaas xiriirkii dalka maxaynu iyo horumarkii dalka inagu maxaynu ka geysanay intaas ayaynu aan faankeena hormaan ku darayaa intan mashaariicda yaryar ee kaalmooyinka ee yaryar mooyaane kuwa weyn aanu qabanay waxa ugu weynaa mashruucii wadada Oodweyne 60,000 oo karoon ayaan siinay 2 sanadood horteed hadda waxaanu sanadkan aakhirkiisa dhammaynaynaa wadada cad oo 60,000 oo karoon aan ugu talagalay inaan siino waxa kale oo iyadu noo furaanayso waqti dheer noo socon doonta
haddii alla yidhaaho waddada ceerigaabo iyada wakhti umaanaan xadidin inay furraato waayo waa waddo dheer oo waddo qaran ayaanu iyada xisaabinay waddo isku xidhaysa somaliland oo runtii halbowlo weyn u ah markaa taa iyada waxaan ugu talagalnay contributionka in aanu intii horena ka kordhino wakhtigana aanu dheerayno oo aanan ka dhigin wax xadidan oo wakhti go'ana horta saddexda mashaariic ee ugu waaweyn waa labada imka socda ee mid sanadkan aakhirkiisa dhammaanayo ka kalena uu noo furan yahay oo runtiina meel wanaagsan aanu marinayno saddexda mashaariic baa ugu waaweyn runtii jaaliyadaha kale anu kama warqabo si ugu wada shaqeeyaan Sweden ku yaala ama dalalka kale ee Yurub hase yeeshee reer maalmo waxaanu aad ay uga duwan yihiin dadka kale marka ay timaado arrinta qaranku inaan mar walba aanu dhinac ka wada taaganahay oo sawirka Somaliland oo dhamina uu ka muuqdo oo aanu ahayn cid wax u gaara dad gaara iyo wax u gaara gobol ama gobolaysi ah runtii iskaashi aad u weyn iyo wax wada qabsi aad u fiican ayaanu leenahay waxaan kaloo anigu aan sheegayaa runtii had iyo jeer dadkeennu waxa ay yidhaahaan waxaynu wax ka sugaynaa hay-ado iyo dowlado kale hase yeeshee bini'aadmigu haddii aanu isagu awooddu leeyahay horta aanu wax ku qabsan ta kale cid kale u keentana waxba u qaban mayso marka hore horta isagu intuu awood leeyahay markuu qofku tallaabsado ayaa waxa kale u soo kordhaana ay wax u qaban karaan marka weli anugu ma arko xitaa haddaynu maalmanahay haddaynu meel kale wixii joogay reer Somaliland yeyba in aynu qabannay boqolkiiba hal uma arka inaynu qabannay weli waynu hakaranaynaa dalkeenna waayo bini'aadmigu eeg halkan waxaan markaanu nimi dadku markuu meel kala yimaado waa in uu khibrad iyo waayo aragnimo ka kororsadaa waayo aragnimadu waxa weeyaan dadkani siday u nool yihiin haddaynaan baran oo aynaan u gudbin dadkeennu waayo aragnimada aynu ku aragno dadkani siday u nool yihiin si wax u qabsadeen dee joogitaankeennu micno yeelan maayo meelaynu joognaba waynu aragnay dadkan qof kasta oo shaqeeya waddankani wuxuu bixiyaa lacag oo nin walba waa laga jaraa ninka subaxdii aad dadka laado mushaarkaaga 30% bay qaataan 30ka la qaataa waxa weeye 30% laga qaadaa waxa weeye waa wixii waddanka lagu socodsiinay ee hawlaha lagu qabanayay haddaba waddankiina waanu ka nimaanu jecelayn ee dadkeena saboolka yihiin cid alaali cid caawisa aanay jirin ilaahay mooyaane cidana ictiraafsanayn waxalaali waxaynu qabanaa runtii ma oran karo waxaynu qabanaa haddaynu sanadkiisna aano war lacag intaas u gooyay waddanka oo wax aynkaas wixii la doonaha la geliyo lacagta waxalaali wixii la doonaha iskuul qurxita la geliyo leeyahay haddaynu ugu talagalno matalan halkan waxaanu bixinaa imka ninka ugu yar sanadkii wuxuu bixiyaa musiiskaad bixiyaa marka bishii laga jaro 30,000 boqolkiiba 30 laga jaro wuxuu bixiyaa ilaa iyo 60,000 100,000 rag baa bixiya sanadkii oo cashuura bixiya okay haddaynu inagu waddankeena ugu talagalno bal bishii 1,000 karoona sanadkii 1,000 karoona oo quraan Somaliland u goyno wax weyn bay noqonaysaa marka runtii intii ay qabateen waan ku amaanaya waan ku amaananahay hase yeeshee weli fari kama qodna meynaan gaadhin weli halkii la doonayay inaynu xitaa fikradeennana inaynu u gudbino meelaha kale waxay naga daydaan inaguna aynu intii hore xawaaraha ka dheerayno oo haddii beedkeeda leeyahay intii in ka badan hawsha aynu qabanayno ay noqoto oo waxaynu iska jaraynaa haddaynaan inagu iska jarin reer koroska waynaga aragnay ma reer koroskeenu ahna waxayna siiya mar walba iyo kuwa la yiraahdo save the children iyo dayagoo koomboon yar ba lacagta ku soo urursadaan barbarta tijaabadeenna ku jirtaan waddankeena siino marka wixii kale inoo soo kordhana aan eegno dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa waftiga noo yimi gaar ahaan rooda aad baan ugu mahadnaqayaa waa dadaal weyn bay muujisay inay noo keentay waftigan iyagana ay keentay oo ay Finland ku soo casuuntay waana loo baahan yahay gidigeen inaynu talaabooyinka caynkaas aanu bridge ka sameeyno oo xadaaradan aynu Yurub joogno iyo xadaaradii waddankeena taale isku xidhno taasaana khibradda maaragtay sameynaysa waa imka waddanka Mareykanka muxuu Yurub ku dhaafay maskaxdii uu ka iibsaday kuwan wixii ay aqoon lahaayeen xaggaas uu la wareegay marka inaguna waxa loo baahan yahay waxaynu halkan fikrad ka helay aqoon haday siyaasad tahay haday dhaqaale tahay haday tacliin tahay haday tahay farsamo tahay inaan xaggii u gudbino wax yarad barataba inaan xaggii geyno oo ay dadkii ka faa'iideystaan sidaasaan runtii horumarku ku imaadaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi haddana waxaan u yeerayaa inuu laba kelmadood yiraahdo Mustafa Axmed Jaamac
oo maaragtay nin qaaliya oo community dalkiina wax badan ka geystay waanu daawanay isagoo iskuulo lacag ku bixinaya marka kelmadana isagaan siinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم بوري aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa idin soo dhaweynaa waxaan ahay buuri anugu isaga tarjumi maayo ninkaa kursiga ku fadhiya ayaan ahay الحمد لله وماركتي إلى هاي عقلي ويسيي وحوي فرنا وان فليا وحن قراهان دون يعني هن كجود بيو فرهين عن ذلك كسواركي وعن تقصنا ضلبة وعن كسواركي كوا إلى مدة أما سير دباتوين كعقبة قبة المدن لكن إلا يلاوي waxaan ku soo arkay buu yiri dad mujtamaceena kamid ah oo dhibaatadu qof walba way ku dhici kartaa dhibaato ku dhacday ama se kuba dhashay sideeda oo hadda laakiin xaaladoodu aad u xun tahay oo aan moodo inaanay cid danaynaysa oo gooniye aanay jirin ama se aan moodo inaanay cid ka mas'uul aanay jirin waxa kamid ah buu yiri for example waxaan tagay buu yiri meelaha ay joogaan ama se ay jiibsadaan Hargeysa dhowr sano ka hor waxaan arkay buu yiri qof aan cagi qabin oo gacmo qabin oo hadda la rabo masquul goda inay meeshii ku jirto oo daa sidoo wax isaga biinayaa buu yiri ama se sidee buu isu nadiifinayaa yani waxaad moodaa buu yiri ama se meeshuu seexanayba ay tahay meel aan eeygu u hoyan karin marka wuxuu yiri waa arrin aan aad iyo aad uga jeeloconayo laakiin ilaahay nagu eegiyo waxaan ogaateen buu yiri khaasatan qolooyinka mas'uuliyiinta maaragtay aanu ka dhiganay mujtamacu uu ka dambeeyo doortay oo halkan imika ay laba meeyarigala hor joogaan waxaan ilaahay buu yiri dhibaatada anigu haysata mid ka weyn baa idin haysata idinka waayo buu yiri idinku laba waajib oo waaweyn oo khatar ah ayaa wadaan buu yiri mid waa naftiini oo ilaahay kula xisaabtamayo midna waa mujtamaca ka timaadeen buu yiri ee duruufaha caynkaas leh oo ilaahay ku diin waxaan aad iyo aad aan u leeyahay buu sidaasi waxaan arkay buu yiri ilamaaya madaxweynayaasheena waan hor fadhiistay madaxweyne riyaala ugu horeeyay markii aan hor fadhiistay ugu horeeyay madaxda kalena waan arkay waxaan arkay buu yiri kharash badan oo baxaya oo laakiin haddana kuwaasi wuxuu yiri ay maaragtay ka dulman yihiin oo ay gidaarada u hoydaan oo aan cid meel loogu dhaqo aan jirin ama se aan wax dhakhtar haysan ama se aan wax soo booqda aan jirin bilaadimkuna waxa weeyaan buu wuxuu u nool yahay sidoo adigu aad rabto ayuu qof waliba rabaa inuu noolaado ilaahayna waa hortiisana iska mid bayna ilaahayna fariin buu weyn buu ina faray iscaawiya baa leeyahay dhexdiina caawiya oo isu naxariista waxaan anugu waan
waan isku dayaa buu de wixii aan samayn kara ee aan maaragtay taalkayga inaan ordo dalkii 2 jeer horeeto ayaan xageeyay mar 20 kursi baan geeyo curyaaminta marna waxaan geeyay 15 iyo qalab kaleeto waxaan imaka ururiyay buu yiri waan halka maayarada wuxuu yiri marka labada maayar ee hor fadhiya waan waraaqaan u qoray buu yiri ma aha kaligooda wuxuu yiri maayarada gobolkeen oo dhan waan u wada qoray waxaan ururiyay buu yiri kuraasi curyaaminta oo dawladdu siisay buu yiri oo laga baxayo laakiin deena keeno cusub 500 ayay marayaan buu yiri waxaan kala ururiyay buu yiri ulaha haga dadka indhahala oo iyakuna ilaa 1000 iyo jarjar buu yiri waxaan kala ururiyay buu yiri ilaa kun ulaha lagu tukubo ee dhakhtaradu maaragtay dadka ay siiyaan laakiin waan ogahay buu duruufo badan inay iska jiraan oo dadka maaragtay qurbaha jooga dadkeenii waa u tijaar buu yiri oo iyo kuunba wuxuu yiri maaragtay haddana dalkii wax ka sugaya waanu ka qayb galnaa dalka wixii hawshiisa waanu ka qayb galnaa buu sida odayaashii iga horeeyay sheegeen ama gudoomiyuu sheegay ama suldaan Ismaanba sheegay laakiin buu yiri waxaad moodaa wuu haddana markaynu dabadii joognay iyo markaynu godihii dalkii joognaba dadka dhibaataysan ee xaaladda aan imaka aan anigu halkaa ku fadhiyo oo anigu de wuxuu yiri dadkaas way kafaalad qaateen ay maaragtay oo aanan anigu dhibaatooyinkaasi de wixii Ilaahay xaqiisa iga qoray mooyaan aanan dhibaato kala qabin haddana waxaad moodaa wuu dhaqan ahaan inaynan u jajabnayn dadkeena dhibaataysan ee aad iyo aad wuxuu yiri u xanuunsanaya xanuunkaasi wuxuu yiri waxa weeyaan buu yiri waa mid niyadeed iyo mid qof ahaan iyo mid cidla ah wuxuu yiri meel allaaliye meel adduunka u ciirsado aan jirin buu yiri waxaan markaasi waxa la igu leeyiri buu yiri waxaan markaan qalabkii soo ururiyay qalabkaasi markii la sanad meesha uu yaalaa buu yiri way ogeen buu yiri jaaliyadu maalmo way ogyahay gudoomiye jaamac way ogyahay buu yiri wala la socdaa dadka wax badan baa la socda qalabkaasi inuu meel yaalo laakiin qalabkii waxa weeyaan waxa la yiri qalabkii waa kaasi laakiin idinku transportationkiisa iska bixiyay 180,000 ayaa wuxuu yiri lagu geynayaa Berbera oo lacagtan karoonka oo u qalanta 22,500 oo dollar u qalanta waxaan gudoomiyaasha ka codsanayaa buu yiri waxa laga yaabaa miisaanku inuu nagu culus yahay oo ay waxbaan ururinaynaa waa taas oo dariiq baan ku qayb galinayo nin walbana haddana tamartiisa iyo reerkii uu ka yimi waxbuu la dagaalamaya waxaan ka codsanayaa buu yiri in arrintaasi iga caawisaan annagu waxaan ballan qaadayaa buu yiri sida waraaqdeedii ku taala in aan imaado aan gaarsiiyo gobolada dalka oo dhan sidii ay u kala baahi badan yihiin waxaan kaloo ka codsanayaa buu yiri jaaliyada iyo dadka walaalahayga halka kan ila degan magaalada in arrintaas u jirto dadkeenina u baahan yahay wuxuu yiri waxa dhibaatada garanaya buu yiri aanun baa garanaya buu yiri balka dhulka ku hadaafayana ka waran buu yiri ee aan meel ku fadhin marka wuxuu yiri qalabkaas walaalaha bay u baahan dadkeenii baa u baahan waana wax wuxuu yiri kharashkaas waa wax kharasho badan oo bilaa macna oo baxabo ayaa jira buu yiri waxaan kale mas'uuliyiinta leeyahay buu yiri nabara oo dhaqankii hore ka gudba musuqmaasuqu hayraada buu yiri markaas inuu dadkeena wuxuu tari karaa shirinku meeshu ku baxayo ummadda waa inay noqoto mid saafi waa ma santiin buu yiri assalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Axmed Jaamac waxa arin aad inooga qeyraysiiyay buu ka dhawaajiyay hadda waxaan u yeerayaa xildhibaanka yaga maalmo
oo ninka aynu dee ka rajaynayno inuu isku xidho maalmo iyo somaliland xagga siyaasadda ku soo dhawow mubaarak cabdiraxmaan ina qamariye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka u horeysa aad baan idin salaamaya kulligiin waxaan si gaar ah u salaamayaa dadka delegation-ka noo yimi maayarada iyo delegation kala socdayba ku soo dhawaada magaalada Maalmo mar labaad iyo mar saddexaadba waqti degdeg ah in lagu weydiiyay in mataqana maayaradu noo imaanayaan oo aan markaa loo baahday in loola kulmo maayarka magaaladan waqtigu aad buu gaabnaa arbacadii ayaa waxaan la kulmayay ninka mayorka course buna siinayay dadka xildhibaanada ku cusub course baan la siinayay oo ka hadlaya xildhibaanadu waxay tahay marka waxaan siintaad mail u dir lahayd ama si kale ula xiriir lahayd bar face to face ku weydii markaan meeshii isugu nimi uu warbixin fiican na siiyay shirkii oo socda course-kii noo socda ayuu irida ka baxay aniguna waan ka daba baxay waan weydiiyay marka waan u sheegay waxaan ku horiyay meeradaas nooga imaanaya dhul fog bay ka imaanayaan inay kula kulmaan way doonayaan halkii buu iigu dhameeyay harankii waxay ku tusaysaa jaaniska fursadda aan helay waxaan hadalka u socdo waxa weeye anigu meesha ma imaan lahayn haddaan idinku ii codaynin marka ma hadda waxaas kale idinka oo isiiye fursaddaas waa jaranjaro anigu ma imaan lahayn meesha haddaan idinku markii hore sidii aad ii caawiseen ii taageerteen ay igu codayseen marka waxay kaloo ina tusaysaa haddaanu haysano dad fara badan oo jagooyin haysta oo maanta jagooyin fiican haysta in wax badan isfurfuri karaan xagga businesska ha noqoto xagga hay'ado badan ha noqoto marka inaga mas'uuliyad baan saaran inaan qolalka go'aamadu ka baxaan iyo jagooyinka ugu sareeya la heli karaayo inaan dadaallo aan meelaha gaarno laakiin waxa fiican mar walba la isweydiiyo qofka anigoo kale ihi maxaan qaban karaa maamaada mar walba isticmaalo Jeff Kennedy isticmaalay ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country maxaan anigu u qaban karaa dalkaygii su'aasha weeyaan su'aasha qof kasta u baahan inuu isweydiiyo kuma dheeraanayo hadal badan hal ma buuxiyo dad badan baa hadlay xaggasan ka baxaya aad iyo aad ba mahadsantihiin martideena sharafta leh reer Copenhagen kusoo dhawaad Axmed bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u soo dhaweynayaa waftiga inooga yimid dalkeenni iyo rooda oo soo qaban qaabisay ama suurta gelisay inaynu maanta halkan kula kulanno waftiga maalmiyo Copenhagen xilli baa jirtay ay kala laba magaalo ahaayeen laakiin imanka waa isku hal magaalo marka taa waa la wada ogiyay bay la tahay jaamac baan maalin dhaweed la kaftamaan ku war jaamac de jaaliyada maalmo kaliya gudoomiyaheeda ha sheegana macaayila muxuu ahaa uu rasuul oo dhan marka taana wada jir baynu uga shaqaynaynaa sida ay la tahay oo waynu iskaashanaynaa oo hal gudoomiyeenu yeelanaynaa ama jaamac ha noqdo ama cid kale ha noqdee annagu Denmark ahaan sida runtii maanta jaaliyadiina quruxda badneedna waanu tagnay wixii shahaadada yaalayna waanu aragnay aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaa haddaad tihiin reer Maalmo Copenhagen sida runtii waa jaaliyad ay aad u wada shaqayn jireen weligeedba odayadii hore ee reer Maalmo halganna badan oo horena waa la soo wada galay annagu waxaanu markaanu meelaha jaaliyada joogno ku faanaayaan nidaahnaa dalka Denmark leeyahay waa dal yar oo aan khariido dabadee ay adag tahay sidaad uga aragtaa laakiin haddana waxa weeye dalka ugu ballaaran caawiye Somaliland ragii ka shaqeeyana waxa kamid ah Yusuf Abdullaahi Umar oo maanta halka fadhiya oo aan islaha isagu haydin hadlo laakiin aniga igu soo riixay hawlaha Denmark laga qabanayo waxaanu bilownay anagoo kaaminka ku jira oo aan sharciyaba lahayn waxa aan xasuustaa imanka sanduuq ballaaran bay Danish ku sameeyeen Somaliland oo waxay ka mid yihiin iyaga Ingiriiska labadii dal ugu horeeyay ee sanduuq ay ku caawiyeen u sameeyay imanka nasiib wanaag wiigan waxa ku soo biiray Jarmalka iyo Holland iyo Norway
taariikh buu lahaa sanduuqa samaysiinkiisa iyo xiriirkan Denmark iyo Somaliland maalintii ugu horeysay ee aan oran karo xiriirkaasi waa asaasmay Danish-ka waa kuwan qaxoontiga aad u neceb kulli sidaynu la soconno konton qof oo reer Somaliland oo xirada ku jiray yiraahdeen waanu celinaynaa dabadeedna dadkeenu aad bay arrintii uga warwareen Allah yarxamee Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baa markaa dalka haystay marka ay jaariyadii dawladdu wada shaqeynayso sida runtii afkaar fiican baa la heli karaa madaxweynuhu isagoo wasiirkiisu markaa ahaa Cabdullaahi Darawal dib u dejinta ee arrimahan ay hoos imanayeen talooyin buu soo weydiiyay wuxuu war kontonka qof maxaa laga yeelayaa waxaanu dal cusub baynu nahay oo imanka asaasmo dunida waxaynu doonaynaa heshiisyo bilateral inaynu la galnaa ninka qaxoontiga haddii halkan lagu qabto iskaga cararay oo dalka lagu tagi doonaaye nimankan idin yimiisaan wala macaamila oo inay dalka wax u qabtaan de kala hadlo marka xiriirka halkaas ka bilaabmay fuudii Danish-ka ay ugu horeysay bartaas ka bilaabantay Hargeysa tagtay qaar bilaysa baa tagay qaar kale oo iyana baarlamaanka siyaasi marka hawshi ku bilaabantay doodii marka baarlamaanka Danish-ka timi waxay noqotay haddii Somaliland aynu doonayno inaynu heshiisyo la gallo dee lama geli karo ila dil jira maahe aynu aqoonsanaba marka go'aankaas way qaateen institute bay wasaaradda arrimaha dibadda ee Danish-ku leedahay la taliya wasaaradda institute-kaasi wuxuu yiri Somaliland haddii hawlahan ay ku fogeyntihiin ay doonaysaan waddan u ololeeya in aqoonsataan amar bay haylisiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Danish-ka wuxuu noo sheegay xilli aan u tagnay in nin markaa EU-da wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsanaa markastoo aan kulana ma aan dhahdo arrintii Somaliland horta wax ma ka qabata imanka haddii kulli dokumentiyadii beriyaha la raadraaca waa la helayaa Danish-ka waxa arrintaas isku hortaagay oo waraaqa u soo qoray oo yiri aqoonsigan u ololeynaysa naga daaya ururka midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta wasaaradda arrimaha dibadduna dokumentkeeda way ku wada jiraan institute-kaasna waraaqahaas way yaalaan taa haddaan soo koobo iyadoo kulli raggii aynu nimid meesha ay joogaan oo sheekada ku dheerayn maaye waxay arrintii isu bedeshay markaa horumarin dhaqaale xafiisna way ka furteen marka kulli anagu dadaalada ugu badan ee aanu ku faanaa waxa weeye dadaalada noocaasa wixii kalena maalmo waxay wanaag leedahay waanu la sheeganaa iminka waxa weeye dee badi nooma dhaxaysa iminka beriyaha qaar bay inoo dhaxayn jirtay hadalka badin maayo oo cid baynu u wadanay halkan oo aynu xiisaynaynaa aynu doonaynaa ereyada inay yiraahdaan Somaliland cidima maqlaan labadii gobol ee darafyada koola diic Gaabiye Boorama maanta ay nala fadhiyaan inta ka dhaxaysana iyaga ay nooga warrami dhammaantiin waa wada salaamantiin salaamu alaykum waraxmatullahi waxaan hadda ku soo dhaweynayaa marwo xildhibaan Rooda Cabdillaahi Xasan oo xildhibaanka magaalada Turku ee Finland عاصمة اللبات فنلند كسودو بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhamaantiin ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhammaan jaaliyada reer maalmo gudida reer Denmark in badan baan akhriyay amaan xiriir badan in badan warbixin badan ka helay jaaliyadan reer maalmo saas aawadeed bay ugu kalifteen anoo waftigii wada inaan idin nimaadno soo booqano xaqiiqdii sharaf baad mudan tihiin wax qabad badan wad samayseen waftigii ugu wadayaan wadanka Finland ku casuunay 2002 bahayd ilaa imigo 2014 noo suurta gashay in 7 xubnood ay magaalada Turku walba si official ah u casuunto taasoo ay daba socotay berigii sanadkiina soo dhaafay oo aniga iyo maayarka iyo gabadhaydu ka socota aan ku tagno waddanka Somaliland booqasho taasoo wada weyn ama inoo furtay in ay dib yaraato in si official ah ay siiba magaaladeedu ula shaqeyso Somaliland waana guul soo hoyatay iyadoo waliba ay magaalada ballan qaaday inay wixii la shaqeynay dambana ay si toos ah la shaqeyn doonto
somaliland wadamahooda mada waynu joognaa jaanisyo badan baa jira haddaynaan jaaniska anigu intaasaan qaban hadday intaa qabaadna intaa qabaadna intaa qaba inaan isla kaashin waxba qaban mayno wadamahooda mada waynu joognaa jaanisyo badan baa jira haddaynaan jaaniska anigu intaasaan qaban hadday intaa qabaadna intaa qabaadna intaa qaba inaan isla kaashin waxba qaban mayno waxaan leeyahay xildhibaanka waad cusub tahay dulqaad badan oo dadka xaggan kula jooga iyo dalkiiba waad u baahantay anigu 14 sano ayaan ku jiray in badan baan ooyay sababtaa waddan aan ila diinahayn oon ila dhaqanhayn ayna xitaa ka gaadhay maadi ku xigeen inta ugu kooban aan qaban karaa waxa weeye inaan somaliland ka dhaadhiciyo dadkeeniina keeno hamigayguna wuxuu yahay inaynu intaa ka sii badanno waxa la wixii su'aalaad iga baahtaana diyaar baan nahay inkastoo waqtiga doonayaan lumiyo oo aad u baahantiin in information badan aad ka yeeshaan xildhibaanada assalaamu calaykum waxaan ku horeysiinayaa odayga maayarada somaliland ismaaciil xaaji nuur bismillaahi raxmaan waa mahadle waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha weyne waaxida ee halkan isugu keenay madantan innagoo ah ummaddii reer somaliland u dhalatay alxamdulilaah kii ugu horreysay ee tirayntaa leeg waxaanu ahayn marka hore 6 baanu ahayn maayarka caasimadda nagu jiray oo guddoomiyana noo ah iyo laascaanood labadu waa nagu jireen iyo labada nina ganacsatada iminka nala socda waxaa dhacday oo labadaas ay naga baaqdeen baasaboorkii somaliland ayaa markii noo suurageli waayey oo uu nagaga habsaamay ninkii laascaanood maayarkii caasimadduna wuxuu ku habsaamay howlo culus oo markii aanu diyaargarownay soo dersay degmadii hargeysa taasuu isaguna nagaga habsaamay oo saasuu nagaga hadhay waxaanu ku soo baxnay markaa 5 maayar iyo labadaa nina ganacsadaanu wada soconno runtii waxaanu muddo joognay kenya 12 cashaa intii fiisa aanu sugaynay 12 casho iminka waxaanu joognay turku iyo helsinki 12 baanu joognay 12 casho aanu joognay 8 casho 7 aroornimo ayaa nala kicinayey sida askartii ilaa iyo 8 habeenimo waxaanu ku jirnay taririn 17 goobood ayaanu tagnay oo kala duwan oo sida wax loo maamulo ama loo maareeyo ama loo nool yahay ama xaaladda meesha ka jirta dowladaha hoose ay u shaqeeyaan ayaa nala baraya annagoo ardaya runtii waa arrin dee aada u culus cilmi badan lagu kharash gareeyey adduun fara badan aadaanu ula yaabnay laakiin kolleyba cala al aqal inkasta ha ahaatee kolley wax waa kala tegaynaa wax allaale wixii suuro galana waan isku dayaynaa biidni illahi alkariim iyadoo ay wax walba u yihiin saldhig ummaddeenna aynu ka dhalannay ee shacbiga ah ee waddankeennii joogta ee ku nool waxaa naloo sheegay sida kudaafadda loo guro ama loo hagaajo ama loo kala guro ama loo kala qaybiyo in laga bilaabo iskuullada carruurtu markay guriga joogto markay dhalato markay raad qaado markay socoto innagana waxaynu sheegnaa ma jiro ma aynu naano carruurta saacadyaa loo garo iskuullada looguma sheego malcaamadaha looguma sheego guriga looguma sheego waata keentay inaynu ku weynaano qof walibana qubo arrintani waxay u baahan tahay markaanu aad iyo aad aanu war maxaynu yeelnaa oo maxaa talaa war waxa ugu horreysa horta rabaayad ba ugu horreysa guryaha ka soo bilaabanta iskuullada ka soo bilaabanta malcaamadaha ka soo bilaabanta
وهول علوس لكن كل يبقى غير دام بنلتقينا وعن رجينا نوح الله روحي صورة قلا إنه بسورة بإذن الله الكريم. وعندي بقول غنيا أنت أنا كسو قدبين أنت ضلكي وحنو كأني من نبض ميل في عمو مريا ميل بينو ذي شوقنا تلفزيون دعوتان وحي نوفرن ذهبين والبنش حالة مري سوى الله سعوتان نسمة بدن باك السعودة ودوين بدن باك السعودة وحفر بدن باك السعودة هرمر بدن باك السعودة ذلكي runtii waxa weeye intii dawladdu gacanta ku dhigtay wax badan aan la dafiri karin baa jira example markaan soo qaato wadada Argabo haddii aanu nahay anagu sanaag ilaa iyo dawladda aan cadde ilaa iyo maanta waxaanu lahayn waddan ka hadlayn in la bilaabo bal mar qura ay suuro gasho in la bilaabo cid kasta way ballan qaaday cid kasta dhagax waa dhigtay maanta ay suuro gashay inta la dhagax dhigay in la bilaabo waxaan u soo gudbayaa idinka anagu intii aanu nimi dalkan Yurub la yiraahdo runtii waxaan nala tusay waji furan rabitaan muxibbo jacayl aad iyo aad baan maqsuud u nahay aad iyo aadna wadi ku ducaynaynaa waxaanu gaar ahaan u mahadnaqaynaa jaaliyadda madaxdeeda iyo xildhibaanka magaalatan maalmo oo ilaa iyo intii warka iyagu yimi mubaarak aan mar qura istaagin ilaa uu suuro geliyey inuu maayarkii annagoo xalay nimi saakaba noo geeyo beritana qaar kale ay noo ballansan yihiin mubaarak iyo jaaliyadda madaxdeedaba mahad ballaaran baanu jeedinaynaa waxaanu idin leenahay allah yajziikum khayr annagu wax kale idin odhan mayne waa mahadsantiin baanu idin leenahay waxaanu dareemaynaa arrinta gabadhani dhalisay waa markii ugu horreysay oo wafti 6 maayara la casumay iyo 2 nin oo ganacsataa oo Somaliland u dhashay ninka maayarka invitation-ka noo soo diray waxaanu ku dhul baanu ku siinaynaa waan aqbalay buu yiri dhisanaya runtii inuu mar labaad ku soo noqday mustaxadna diyaar buu yahay kuwan maanta la kulannay saasoo kale aanu ka rajaynaynaa mubaarak waxaanu ka rajaynaynaa wafti naga sii culus inuu isla casumi doono oo keeni doono waxaan dareemaynaa waxaana casumay qoladii Soomaali weynta ee joogay Turku ayaana casumay waanu tagnay waxaanu dhawaa u tagaynaa si fiican bay noo casumeen waan wada hadalay waa waswaraysanay waanu u warranay way la yaabeen 6 maayar waan meeshii aqoonsi lahayn oo iyagii xaggoodii ay aqoonsi leedahay oo la casumay oo dawladii keentay meesha say u dhacday bay leeyihiin guux badan bay gelisay qoladii Soomaaliya waxay gelisay guux waanu dareemaynay inay guuxayaan marka runtii waxa halkan nooga muuqatay wadda aan jirin markii hore banidnayd ayay intani furtay meel kastaba iminka waynu ku jirnaa xildhibaanada dawladaha hoose Yurub oo dhan bay ka jiraan carrada Ingiriiska ka jiraan dhulka kale oo dhan bay ka jiraan qolyaha kale oo dhamina inuu tallaabada qaadaan ayaan rajaynaynaa waxtar weyn bay noo tahay waa aqoonsi dee aan jiri jirin oo inoo soo kordhay wey waan ku badiyay raalliga ahaba waxaan ku soo dhaweynayaa maayar Sleebaan Xasan Xaddi ku soo dhawo gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha reer maalmo ee halkan isugu yimi jahliyada
iyo waftiga ballaaran ee naga soo raacday magaalada aanu tagnay maanta xildhibaanka mubaarak oo runtii hawl badan qabtay iyo guud ahaanba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu de horta hadal badan bay imaanayno oday 70 jir ah hadlo waxaan u malaynayaa marka hore waxaan islaa wuxuu buu ka tagay iloobi chance badan buu helay laakiin waxaan doonayaa in kulay meelaha qaar kood inaan yar taabto horta guud ahaan waa sidoo idin warramo wadanka waa nabad haddii aad hadallo duulduula maqashaana runnaga ma aha hadday xildhibaano tahay hadday gole baarlamaan tahay hadday xisbiyo tahay waa goolaaftanoo siyaasadee ka mid waayo waddanku waa waddan weli soo kobcaya waa laga yaabaa in goolaaftankani weli stage caalamkan aad joogtaan horumarayba ay soo mareen inay tahay markaa dhib ha u arkina horta ujeeddooyinka aanu u nimi halkan waxay ahayd inaannu khibrad iyo aqoon ka kororsanno waddammadan horumaray runtii waxaannu aragnay waxyaabaha noogu dhibaatada badan halkaa in halkan ay ugu faa'iido badanta oo qashinku kow ka yahay haddii hiiter laga dhalinayo haddii electropower laga samaynayo haddii siyaabo kale loo isticmaalayo in qashinku au noqday ka ugu faa'iidada badanoo weliba qayb ka mid ah loo dhoofinaya Sweden annagana waa wax noogu dhibaato badan waxa khaatiyaananu ka taagna waa qash wax kalena dhibaatada ma keenaysee innaga ayaa aan laynagu soo barbaarin systemka lahaanshuhu uga muuqdo qofka waa laga yaabaa idinka laftiina inay dhibaatadii soo martay carruuraha soo kaxaysateen iyagoo yaryar markaad la timaadeen ilmaha yar wax kastoo qurux badan oo arko ku ooyi jiray waanu haynaa informationka qof kastoo ilmo yaroo gaali waxa uu wato way kaga dhigi jireen kubad hadday tahay wax yaroo kaloo qurux badan problemka Kenya waxa weeyaan ilmahani waxa uu leeyahay iyo waxaanu lahayn baynaan kala barin beentana inaga ku ababinay beentana ku tarbiyadaynay waa ogtiin ilmaha yar markuu inaga daba qayliyo xagga markaynu joogno aaba ama hooyo sii joog haye ii soo iibin waay anana naciyo kubad ku soo iibin qofkii maran baa imanaya ilmaha yar uu weydiinaya aaba aaway hooy biraan ku waa been baanu ku tabarnay carruurta waxyaabaha base-ka u ah waxyaabaha aanu halkaa aan doonayno inaanu kala noqonnaa waxa weeye barnaamij keliya oo idinkuna aad wax nagala qaban kartaan haddii ilaahay idhaahdo dad mutacalimiin ayaa halkan jooga culture-ka halkan ka jira iyo horumarka iyo development-ka la gaadhay ku taringarayn kara dadkii inaanu ka codsanno maamulka maayarada ama maamulka aanu halkani kala kulannay inay noo soo diraan oo ay wixii dhaqaale ahna ay ka caawiyaan wixii ay tari karayaan oo in muddo ah aqoonta ay halkan ka barteen iyagoo somaliland oo dhaqankiina la garanaya inay tarangareeyaan dadka oo barnaamijka ugu horeeya aanu sameynaa inuu noqdo dib u dadayn inaanu dadkan dadnimadii ku soo celinno waxaan xasuustaa berigii hore aanu nimay Sweden iyo Norway iyo Holland wixii aanu la kulannay ayaanu niri war ku abalay garan kari mayno hal qodob aynu qaadanno waa ogtiin dhulku soo dhiraysan yahay aynu magaalooyinkii dharayno go'aanka ugu horeeyay qaadanay wuxuu noqday inaan idhaahno riyaha aynu ka mamnuucno magaalooyinka magaalo kasta riyaha ka buuxa markii ugu horeysay go'aankii aanu qaadanay aanu fulinay qayladii ugu horeysay ay timi islaanu eedadii oo aan darisnaa markiiba habeennimadii guriga ugu sugtay way timi eedo waxaan kugu codaynaa inaad argayga xidhxidhay ahayd xagaan uga leexanayaa marka wixii aanu doonaynay inaanu qabanno waxa ka hor imanaya xaaladda wacyigelin la'aaneed ee taalawad waddanka xaqda markaynu ka hadalno dadkii aad ku haagi lahayd sharciga judhaaba ka kuugu xigu ka hor imanaya marka waa inaad indha adeeg iyo calool adeeg isku darto taasaanu go'aansanay kana hadhi mayna laakiin mid unbaa qurux badnaan lahayd qurbajoogu sanad kasta waa yimaadaan
waxaan horta sanadka soo yimaadaan 2 sano aanu joognay 2 sano waxaan u qabtay casuumad waan isugu yeedhay dhammaan qurba jooga waxaan ka sii jeclaan lahaa qurba jooga reer Somaliland ee gobolada kala duwan jooga jahliyado iyo maamulku intay isku tagaan oo samaystaan dallad guud in wadanka horumarkiisa wax la naga qabto beeska aanu ka bilownay la naga caawiyo oo maxaa la sameeynaya in sidii khuruushka way u guurayay soo baxaan kulba degmad ku soo baxdaan oo dadkan behavior change aynu ku sameeyno waa laga yaabaa in wax qabadkiina uu noqdo wax muuqda markaynu si academic aanu wada hadalno wax muuqda inuu noqdo inuu wax ka bedelo oo at least wax kale iska daayay aynu hargeysana ka dhamayno looda habeenka dhex seexanaysa wadooyinka booramana ayda aynu ka dhamayno burcana aynu riyaha ka dhamayno berberana geela waxaan aaminsanahay sida Ismaaciil Xaaji sheegay horta markaanu isla socono xoogaa galbeed bariya galbeed baanu isku jiidanaayo waliba berbera waa xaga galbeedkanu soo raacinaa laakiin haddii aynu horumar ka hadlayno waxaanu nahay kuwo gacmaha haysta degmada kale wixii ay itaal dhaanto ay ku caawisaa qalabka maanta hargeysa haysto waa laga shaqayn karaa saylac oo waa laga shaqayn karaa ceerigaabo haddii ay berbera haysato qalab ku dhaanto degmada loo baahdo marka waa laga shaqayn karaa horta waxaanu leenahay urur midaysan meeyaradii hore waa laga yaabaa inaanay suqoonba oo ina salaanta iska qaadi jirin anagu waxaanu nahay horta team isku xidhan oo meeyar hadii la weeraro inta kaleba dul taageen habeenimada waxaanu go'aansanay inaanu wadanka horumarkiisa meel uga soo jeesano midnimada yadana aanu adkayno role model inaanu u noqono maamulka jira Somaliland way cadu badan tahay runtii Somaliland way cadu badan tahay waka hadda Ismaaciil idin sheegaya wax kale iska daay imaatinka yaga ayaa dad buu wuxuu ku noqday nimbil dab ah ayuu ku noqday waay wadan aan la aqoonsanayn wafti inta leeg Soomaaliya la daba taagan yahay saddex isla socda dema iman Yurub saddex qof oo isla socda ma iman anagu 7 baan ku imaano waliba sidaas imika hadda ay tagi doonaan wafti rees Suudana oo ka badan 10 qof ay tagi doonaan cadaana oo ay hogaaminayaan jahaliyadaas ay tagi doonaan haduu la yiraahdo iyagoo oo ujeedada ay u tagayaan ay tahay ballamihii iyo awaamirtii aanu ku kala tagnay iyo xiriirkii aanu wada yeelanay berigii aanu nimee safarkaygii hore taasoo la doonayay in degmooyinka Somaliland dhamaantood la soo indheeyo lagana caawiyo wax alla wixii baahiyaad aanu gudbinay oo ay u horeyso town balaanku marka aanu ka hadlayno jidadka iyo qaab dhismeedka magaalooyinka caasimaddeena waad ogtiin maanta sayt gawaadhidii way kordheen dadkii way kordheen wadooyin ma haysano wadooyinka Ingiriiska sameeyay ayaan wali barandayaal iyo marfasho dumarku jaad ku iibiyaan aanu soo dhignay saxmad ayaa xidhanta hadii 12 la gaadho magaalooyinkiina sidii loo dhisi lahaa ay naga caawinay haduu la yiraahdo waxana ilaahay nooga baryayaa 10 kale oo sida rooda inaanu gabdhaheena Somaliland ee Yurub jooga inaanu ka helno aamin dah aad iyo aadna waa maasantiin hadalka oo idinku badiyay iga raale ahaada anigoo ku hadlaya magacii meeyarada degmooyinka Somaliland hadalka intaasan ku soo koobaya waxa kale xusid mudan inay wafdiga la socdaan 2 mudane oo ganacsata ah oo la kala yiraahdo Mustafa Aadan Cabdi oo Mustafa Dahable iyo Cabdi Wahab Maxamed Cabdi Wahab Teleso oo iyaguna ma sha Allah xagga ganacsiga iyo indhayn waday kulay mala iyaguna tribada dambe wufuud ganacsataa ku soo bixi doonaan dardaaran iyo hadalna waynu dhameynay ilaahay sida khayr kala hayna waafajiyo taladeennana ilaahay ha waafajiyo
marka aynu isku tiirsanno un baynu wax qaban karnaaye teenna ilaahay ha mideeyo waxaana idinku ducaynaynaa inuu ilaahay midnimadiinna xoojiyo hadalkiinna iyo hadafkiinnana mideeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu